toddobaadkan barnaamijkayga waxaanu ku eegi doonaa kaalinta uu ku leeyahay aabbaha Soomaaliyeed bulshaweynta Soomaaliyeed dhexdooda iyo waliba gurigiisa iyo abaabinta carruurta Soomaaliyeed sidaynu ka wada warhaynaba waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku dayacan dariiqada magaalada London iyo gaar ahaan xabsiyada magaalada London taas ma loo eedeyn karaa inay aabbayaasha Soomaaliyeed kaalintoodii gabeen maadaama ay jirto oraah Soomaaliyeed oranayso wiil waa aabbihi aabbaha Soomaaliyeed kaalin kaliya ma kaalmo badan oo uu buuxin lahaa ayaad moodaa inay hadda ma garanaysaa ay maqan tahay waliba way sii madhnaan doontaa kaalmaha ama kaalinta iyadii maxaa yeelay 20 sanadood ama 30 sanadood ugu dambeeyay dalka dagaallo ka jiray iyo burbur sii xoogaysanayay oo ilaa haddana socda ayaa wuxuu keenayaa in generationka ama faca kici doona hadda iyo wixii ka dambeeya in aanay la dhaqan noqonin oo aanay la aragti noqon oo aanay la fikrad noqonin faci inaga horeeyay ama faca maanta jooga ma garanaysa runtii qof markuu wadankiisa ka soo baxo waxyaalo caqabado fara badan ayaa ka hor imanaya ama ha noqoto environment-ga meesha uu soo galay uusan aqoon u lahayn sideeda badan inta badan dadka Soomaalida miyiga laga wadayay in yar mooyaane inta kale xataa tuulo dadkii yimaada ayaa jira magaaladan oo metropolitan ah lagu soo dhex tuuray qofkii waxa uu wareeraya aabe Afrika ka yimi ikhyaarku ku yimana aabe kuma aha ikhyaarna kuma eemana wuxuu ku yimi qaxooti waxa halka markuu yimana jawi uu yan aqoon ayuu la kulma saadarteed lama oran karo aabaha Soomaaliyeed waa aabe hooyada Soomaaliyeed lama oran karo waa hooyo haddii aan hooyadii hooyo la oran karin aabiin aabba la oran karin yaa u maqan marka dhalinyarada Soomaaliyeed meeshan iyagu ku dhashay ama ku koray horta waxa fiican inaynu ra'yigeena cabiro aynu danteena eegno waxay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay la jaan qaadaysaa in waxa uu yahay social ama social with the friends bay tiraahdaa waxa weeye community ay la nool yihiin bay la jaan qaadayaan anigu waxaan ilaa ama hooyadu waxay tiraahdo ma garanayaan sababtoo ah carruurtan aad adiga lagu dhiibay ka aabahan ama ka hooyo ahaan waa wax lagu amaanaystay maahna waxaad adigu xukunto maaha waa wax dad kale ku dhiibteen way carruurtan aroorti baa laga kaxayaa 3 galabnimo ay ku yimaadaan 3 galabnimo markay ku yimaadaan waxay oran karaan ma in yaro ay TV-ga eegtaan maahayne jaanis ad ku edabsato ama wax ku tiraahdo ama wax ugu sheegto midna toona ma laha saadarteed waxa way waalidaan waa soo koolid waalid baa lagu magacaabo maahayne wax waalid la yiraahdaa ma jiraan carruurtina kuma aqoonsana carruurtaada laba erey markaa tiraahdo ama aad tiraahdo ama waxbar ama waxbarin kelmad agreement markaa tiraahdo oo tiraahdo si kelmadii marka labaad wuxuu leeyahay adaaba naftaada adiga aabaha oo haba carruurta ka baqaaya hooyadii ka baqayso hooyada u ahay oo ileeda ama lagu dacweeyay hadaad carruurta wax hagaajiso inagu dhaqan baynu leenahay dhaqankeena wuxuu ahaa walow ayaan dhaqanada Yurubta iyo kale ayuu ku jirin dhaqan islaami oo soo jireen carruurta waa la canaantaa waa la edebsadaa waa yeelka la baraa si loo ixtiraamo yaryarka sida loo ixtiraamo ayaa la baraa siyaabahaas oo dhan halka markii la yimi carruurtii free baa laga dhigay waxay doonaan way sameynayaan adigu waalid ma tiid hadaa cunugaaga tiraado edebso ama falkay weyn oo criminal aan noqota dhibaato ay kugu dhacda ayaa imanaysa markaas darteed waxa way aabuhu aabinimadiisa bahayso ma jiro nin Soomaali oo aabba ah uu yar yahay ma jiro ma dhihi karo uu yar yahay nin Soomaali oo aabba ah oo yaqaan mas'uuliyadda aabanimo waxaan nimid meel ka fiican dhulkii aan naqinay Soomaali ama adduunka intiisa kale muslimka waxay kaga fiican tahay qofka bini'aadamka hadday dhibaato ku dhacdo hadday wax la'aan la soo gudboonaato wuxuu helayaa dad kaalmeeya isaga iyo familkiisa oo dhanba guri siiya lacag siiya nolol siiya marka fursadii qaaliga ah saas ahayd Ilaahay uu noo sakhiray gaaladii ama wadanka aan nimid dadka Soomaalida waxay u isticmaaleen inay ka dhigtaan sidii corruption oo kale xatooyo oo kale ninkii inuu xoogiisa ama meel la fadhiisto ama uu gaar u shaqaysto oo mas'uuliyadda reerkii iyo gabadhii iyo carruurtii uu banaad fara ka qaado fara badan oo Soomaaliyeed oo intuu gurigiisa carruurtii iskuulka ka timid la joogi lahaa hadda wadamada qurbahan joogno carruurtii waxay u baahan homework laga caawiyo ama layli loo soo diray waxay u baahan in tala guud laga siiyo waxay mustaqbalkooda baran lahaayeen waxay u baahan yihiin waxyaalo fara badan in laga caawiyo anigu u malayn maayo inay kaalintii aabbo dhammaanteed meesha ka baxday laakiin dayac badan uu jira oo maartay ku dhacay maartay ka yimid labada dhanba oo qoysaska Soomaalida saameeyay waxa ugu badan ee maartay dhibaatada ugu badan ay ku dhacaysana waa carruurta
marka anigu ma odhan karo aabbaha oo keliya ayaa maaragtay kaalintiisii ama gabay ama maaragtay dayacay laakiin waxaa muuqata horta in qoysas badan oo Soomaaliyeed burbureen oo ay maaragtay kala tageen marka de waa in horta si cilmiyeysan loo darsaa laga maaragtay waxaan u lahaanu daraasad dad cilmi baarayaal ah inay darsaan oo ay raadiyaan sababaha keenaya in maaragtay la kala tago ama ay qoysasku burburaan in la raadiyo dabadeedna la isku yimaado oo xal guud la raadiyo wanaagsan waayo soo aad bay noo saameysay xoog bay noo saameysay arrintaasi guurku sidiisaba micnaheedu waxay tahay adoo soo guuray iyo gabadhii soo guurtay waa la isu soo guuray tag baa meesha ha marka qof waliba wuxuu la soo guurayaa dabeecadiisii iyo dhaqankii uu watay wuxuu la soo guurayaa wax allaala wixii macnaheedu isagu rabay baahi haysay buu la soo guurayaa oo doonaya in baahida iyada la kafeeyo dadku waxay moodaan baahidu inay tahay ma garanaysaa lacag la isa siiyo iyo arrimaha gogosha iyo maaha baahidu hadal baa loo baahan yahay in la wada hadlo in la wada sheekaysto yaa loo baahan yahay waddankanna haddii aan la wada hadal reer lama dhisi karo lamana dhaqi karo wax kasta waxay ku xidhan yihiin wada hadalka iyo wada socodka iyo in laysa siiyo information iyo xog laysa siiyo iyo u baahanta in layska warhayo ninkii isaga ahaa ma doonayo markaa inuu ooridii ama reerkii uu ka warhayo wuxuu doonayaa inuu ka soo sheekeeyo maqaayadda afar saaxiibadii ay ka sheekeynayaan taasoo runtii ku ah xaqdarro ma garanaysaa gabdho fara badan oo Soomaaliyeed labada qof haddaanay iyagu dhan wada socon oo aanay iskaashan oo aanay maaragtay wax wada qabsan meel ma gaarayaan in la isdiriro oo la isdagaalana xal maaha in maaragtay la isku cadow ahaado oo la isla ficiltamo oo qofka kale maaragtay la xafiltamaana de xal maaha oo maaha labada qof ma kala badanayaan iyaguma guuldarraysanaya waxa guuldarraysanaya maaragtay wixii ka dhaxeeyay oo carruurtoodii ah waxa guuldarraysanaya qoyskii Soomaaliyeed ee maaragtay ahaa asaaska maaragtay ummadda society-ga ama maaragtay mujtamaca Soomaalida haba burburaya marka labada qof cadow iskuma ahe nastaxna isku noqdaan ayaa wanaagsan waxaan isleeyahay ilmaha Soomaalida wixii halaabay maaha isaga folkiisa waa aabbaha iyo hooyada folkooda wixii toosayna waa wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala toosiyay dadkuna waxay ka tageen laba shay oo muhiim ah marka hore diinta bay ka tageen qofku inuu xun sheego inuu xalaal cuno inuu sharafta ilaashado waa diinteenna markii la wax ka tageen culture-gii ahaa dadku inay isbadbaadiyaan oo nin kasta oo Soomaali hadduu arko ilmo dhalinyaro ah oo rag iyo dumar ah inuu adeerow dhaho oo waxaan waa qalad dhaho oo uu sheekeeyo oo soo dhaweeyo uu ka leexday ka wuxuu keenay inuu amcaayo oo hadalku ku dhaho ama dhinac ka qabsado oo iska dhaho soo marka dhalinyaradii ma aysan iyagu maaha faultigooda laakiin nasiibka ayaan saacidin iyo waqtiga oo meel gaalahana way ku koreen dhaqan iyo culture iyo aabanimo iyo waalidnimo iyo diinna maysan helin soo marka wixii khaldamay waa wax ku dhacay waalidkooda mas'uuliyadiisa dhalinyartan wadooyinka taagtaagan aabbayaashu kaliya maaha waalidku kaliya maaha community-ga oo dhan baa ka mas'uula dhalinyartan lunsan ee taagan wadooyinka waxa weeye in la isla kaashado waalidka community-ga booliiska iskuullada intaasoo dhan inay isla kaashadaan weeyaan si dhalinyarta loo badbaadin lahaa waxa weeye isbaabi'innay baan odhanaya anigu aabe ayaan ka mid ah aabbayaasha ayaan ka mid ahaa isbaabi'innay ee aynu isdaba qabanno waxa haray inaynu daba qabanno oo badbaadinno ayaan aabbayaasha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed u sheegaya intaas ayaan leeyahay ragga waxaan leeyahay waraga guri waa haween hoggaanka qabta gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho karti badan waa gabdho sharaf badan waa gabdho macnihii aan ilaahay inagu galaday haddii ragga Soomaaliyeedna maxaa yeelay quality-ga gabdhaha iyo quality-ga ragga marka la isu eego tayada gabdhaha ayaa aad u sareyso ragga aad uga sareyso marka waxaan leeyahay war gabdhaha aynu hananno gabdhihii waxay u baahan yihiin waxanta aynu hananaan leeyahay ma ogtahay hidiya dhaqanku waa hubantideennii adiguna hablaha maanta waad ugu horreysaaye halbowlaha wadnaha iyo bogaad igaga taalaaye halse iga dardaarana ayaan kuu holinayaaye ogow gacmo aan is haysan ogow isku hiilin waaye ogow guul ma haybsadaan fikradaha kala duwan ee ka imanaya aabbayaasha Soomaaliyeed iyo bulshooyinka Soomaaliyeedba waxaad moodahay inaynu qofna dhaliisha rabta uusan qaadanaynin balse su'aasha isweydiinta mudani waxay tahay hadday aabbayaashu diideen inay dambi leeyihiin maxaa ugu wacan carruurta Soomaaliyeed dariiqada taagan iyo kuwa waliba ku dhibaataysan waddanka gudihiisa